السلام عليكم. waxaan maanta barta idinku soo tabin doonaa xikmado xul ah oo aan idin soo xulay waana xikmadii qarniga qaybtii saddexaad. ilmada ugu xanuunka badan ma aha ta ka timaada indhahaaga ee daboosha wajigaaga, balse waa ta ka timaada qalbigaaga ee daboosha ruuxdaada. wixii hore way ku dhaawici karaan haddii aad in badan ka fikirto, balse waad ka carari kartaa haddii aad cashar ka dhigato. dareemaha ugu yaabka badan waa adiga oo qof jeclaada kuna fikira inaad mar uun la kulanto, balse waayuhu idin kulmiyo. haddii 5 ilbiriqsi oo dhoolla caddayntaada ka mid ah ay samayn karaan sawir aad u qurux badan, bal qiyaas haddii aad joogtayso dhoolla caddaynta, noloshaadu caynkii ayay noqonaysaa. xaalad kasta oo kula soo darista ha iska lumin rajada, waayo marka uu dayaxu qarsoomoba xidigaha ayaa lagu gudaa. mid ka mid ah sida ugu fudud ee farxad waarta lagu helo waa adiga oo iska indhatira wax kasta oo murug kugu sababi kara. sida ay nolol u jirto ayay rajana u jirtaa. maalin kasta oo cusub waa fursad si aad noloshaada u beddesho. marna ha u ogolaanin inuu qaladkaagu dhaawaco qalbigaaga. abaalmarinta ugu wanaagsan ee uu qofku siin karo saaxiibadiis waa waqtigiisa iyo dareenkiisa, waana sababta aan mar walba idinla wadaago aragtidayda aniga oo idin siinaya qayb ka mid ah waqtigayga. jooji fikirka khiyaaliga ah oo ka fikir suurtagalnimada guushaada. noloshu waa tijaabo, qof walba oo wax tijaabiyaana aakhiritaanka waa guulaystaa. haddaba noloshaada iyo naftaada mar walba tijaabi si aad u guulaysato. waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan, waxaanad u isticmaali kartaa inaad ku beddesho adduunyada oo idil. u noolow maalin kasta sidii inay tahay maalintii kuugu dambaysay adduunyada. alle ma sameeyo qalad, balse wuxuu sameeyaa mucjisooyin. adiguna waxaad tahay mid ka mid ah, sidoo kale anna waxaan ahay mid ka mid ah. ogow, rajadii la dhowraa mar uun bay rumowdaa. haddaba alle ka rajee wax wanaagsan.